Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay dhamaan asxaabta. Maanta waa qeybteeni saddexaad ee taxanihii casharkeeni ahaa sidii loo sameeyo application. Maanta waxaan ku baran doonaa sidii loo soo downloadgareysto application-kaagii aad soo samaysatay. Markaan u baahannahay inaan soo downloadgareysano application-keeni aan soo sameynay muddada inoo soo socday. Maanta waxaan isticmaalaynaa casharada hore computer-kan ku isticmaalanaa, maanta laakiin mobile-kan isticmaalaynaa maadaama uu yahay Android application oo computer mobile-ka uu ku shaqeynayo application-kan aynu sameynay. Maanta mobile-kan isticmaalaynaa, marka mobile-kan kula soo dejisanaynaa application-keeni aynu soo sameynaynay. Maanta waxaan isticmaalaynaa barnaamijka Chrome la yiraahdo. Marka waxaan soo fadhiisanaynaa Chrome-heena. Halkaas waxaan ku qoraynaa search button-taas magaceeni appgezer.com buu ahaa website-keenu. Absolute wireless-kan soo furaynaa. Dabeeto goobin oraynaa. Dashboard noocan ay noo soo baxaya. Dabeeto waxaan sameynaynaa login baynu oraynaa. Already nagu haysanay ciwaankeeni login baynu oraynaa. Dashboard-kan tagnaa. Wuxuu noo soo saarayaa markaa wuxuu noo soo saarayaa dashboard-keeni anaa ku save gareeyay. Marka waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay download your app ayaa ku dhufanaysaa. Waxaad oranaysaa download. Publishing ayuu sameynayaa wax la yiraahdo. Publish ayaa oranaysaa markaa. Download ayaa oranaysaa. Okay ayaa leedahay. Okay ayaa oranaysaa. Open ayaynu leenahay. Install ayaynu oraynaa. Waynoo dhamaystirnay. Ayaynu leenahay. Open ayaynu oraynaa. Aynu ku noqono wax noogu soo bandhigayaa siduu u ekaanayo. Waa ka channel-kan inoo saaray. Halkan waa fiidiyowyada daawatid kuwaad ugu jeceshahay halkan ay soo gelayaan. Halkan hadda fiidiyowda oo dhan hadaynu eegno sida u shaqeynayaan. Halkaasaan kusoo dhufanaynaa. Waa ka sidaas u shaqeynayaa. Hadaynu ka noqono
dhammaanba iska soo wada xidhno. Waa kaa waa application caadi u shaqeynaya. Waxaan nooga dhiman inaan xoogaa editing ku sameyno. Marka maanta intaas inoogu eegaya casharkeenu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaamantiin tani soo noqonayna cashar kale oo xiiso leh. Billaahi tawfiiq.